filimkan oo lagu magacaabo King of the Sands waxaa Jimcihii la soo dhaafay lagu soo bandhigay magaalada madaxda dalka Suuriya waxaana cambaarayay filimka Amir Talal bin Abdulaziz oo kamid ah qoyska boqortooyada dalka Sacuudi Arabiya si uu u sirgaxo jaantus taariikhi ah oo dadka Suuriya ay ku doonayeen in filimkaasi ay ku soo bandhigaan warbaahinta internetka ee bogga ganacsiga ka hadla ee wadamada Carabta qaarkood ayaa sidaasi tabiyay waxa uu filimku ka sheekaynayaa soo ifbixii iyo dabayaaqadii boqor Abdulaziz Al Sacuud waxa kale oo loo yaqaanaa bin Sacuud iyo udubdhigii boqortooyada Sacuudiga horaantii qarnigii 20aad soo saaraha filimka oo la yiraahdo Najdad oo u dhashay wadanka Suuriya ayaa tusmadiisii ugu horeysay waxa uu ku soo bandhigay magaalada London September-tii sanadkan waana markii ugu horeysay ee uu qof filim ku jilo shakhsiyadda bin Sacuud waxaana matalayay jilaa u dhashay wadanka Talyaaniga oo la yiraahdo Fabio Testi muujinta dabeecadda shakhsiyadda uu lahaa bin Sacuud aad baa lagu kala aragti duwan yahay marka aan ku eegno indhaha dadka u dhashay wadanka Sacuudi Arabiya sababtuna waa habka loo jilayo shakhsiyadiisa ma qof aan damiir lahayn naago jecel dhiig yacab oo dabadhilif u ahaa Ingiriiska telefishinka Iran ee Press TV ayaa sidaa ku sawiray shakhsiyadiisa horaantii sanadkan idahiyada filimka mid kamid ah waxay muujinaysaa bin Sacuud oo dhalin yar ahna sidii hogaamiye Masayna ah ama xilkiisa ku jin ah oo sarkaal ciidamada nabad sugidda Ingiriiska ah John Philippi kula hadlaya hadal aan ficil lahayn muuqaal kale oo idahda kamid ah waxa uu muujinayaa bin Sacuud oo qol jiif dhexdiisa kula hasaawaya haweenay dhalin yar ah soo saaraha filimka ayaa sheegay in filimka uu faa'iido weyn u leeyahay marka laga eego dib u eegida taariikhda taas oo saldhigeedu yahay wax dhacay 100 sano ka hor oo laga hadlo fowdo hadda jirta kana jirta dunida Carabta Lubnaan wargeys ka soo baxa oo taabacsan Xisbullah oo la yiraahdo Al-Akhbar ayaa sheegay in horey filimka looga daawaday Beirut diidmada Sacuudiguna waa malaha natiijo keentay taageerada Riyaad ee mucaaradka ka soo horjeeda Asad ee Suuriya Amir Talal bin Abdulaziz ayaa barta uu ku leeyahay Twitter-ka si kulul uga hadlay filimka isagoo leh filimkani waxa uu ku dhamaan doonaa halka lagu shubo qashinka hindisaha fanka guuldareysta Amirka Sacuudiga oo kamid ah wiilasha uu dhalay ninka uu filimkani sida tooska u quseeyo ee ah aasaasihii boqortooyada Sacuudi Arabiya waxa uu ku daray hadalkiisa inuu raadiyay dhexdhexaadin madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad si loo joojiyo filimka laakiin laga daawaday dalka Suuriya si kastaba ahaatee waxa muuqata in Suuriya ay dhagaha ka fureysatay doonista Sacuudiga ee ah in filimkaasi la joojiyo waxa TV Siiriyaan ah oo dad aad u fara badan ay daawadaan laga dheehday dad fara badan oo u sacbiraya iyagoo daawanaya filimka ka hadlaya boqortooyada dalka Sacuudi Arabiya oo laga dhigay tiyaatar weyn oo ku yaala magaalada Dimashq amaanka goobta oo aad loo adkeeyay ayaa la sheegayaa in banaanka hore uu ka dhacay qarax sida muuqatay la doonayay in lagu carqaladeeyo bandhiga filimka laakiin cidi waxba kumay noqon marka laga reebo burbur gaadiid halkaasi yilay I am Abdulaziz Al Saud, Sultan of Najd.